munaasabadan oo lagu weyneynayay sanad guridii 56 ee ku beegan markii la aasaasay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya oo la aasaasay 1965 kaasi oo ay ka soo qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida wasiiro iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Inta munaasabadu ay socotay ayaa waxaa looga hadlay horumarada ciidanka badda ay ku talaabsanayaan iyo muhiimadda ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ay ku leeyihiin ilaalinta xeebaha Soomaaliya. Taliyaha ciidanka dhulka General Maxamed Tahliil Biixi, taliyaha ciidanka cirka General Maxamuud Sheekh Cali Dablebaylot iyo taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabbaas Amiin Cali ayaa si wadajir uga hadlay horumarada ciidanka badda. waxaan rabaa inaan tahaniyad ama hambalyo aan wakiil uga ahay ciidanka dhulka meel u joogaba aan u diro ciidanka badda uu ugu horeeyo Saree Guuta Cabdixamiid saraakiisha sareeyaasha kale ciidanka badda dhammaan ciidanka badda iyo xaasaskooda ciidanka difaac ciidanka badda iyo difaac xeebaha Soomaaliyeed waa tiirarka muhiimka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay wadan walba waxa lagu qiimeeyaa deegaanka uu degan yahay ama dhulka uu degan yahay sida uu yahay baa ciidankiisa lagu dhisaa. maanta waa maalintii dhidibada loo aasay ciidanka badda Soomaaliyeed oo maanta ku beegan sanad gurideedii 56. marka hore waxaad iga guddoontaan salaan iyo hambalyo aan idinkaga sido taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya Admiral Cabdixamiid Maxamed Derer ayaa hambalyo u diray ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya munaasabada awgeed wuxuuna ku booriyay ciidanku inay si laban dadaalkooda ku aadan difaaca xeebaha Soomaaliya. taariikhda ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya waa taariikh soo jireena maaha wax maalin ama saacado ama muddo lagu soo koobi karo awoodda uu lahaa ama waxyaalaha uu difaaci jiray meelaha ugu muhiimsan ee uu ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ma ahayn ilaalin kaliya wuxuu ilaalinayay khayraadka ummadda Soomaaliyeed wuxuu kaloo ilaalinayay in xuduudaha uu leeyahay uu sugo ilaa raas Kamboni ilaa Saylac waxaa deganaa ciidamada badda oo ay ku lahaayeen baysas oo meel walbana uu ka joogay ciidan. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa u hambalyeeyay ciidanka badda wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la tayeeyo ciidanka si ay u gutaan waajibaadkooda. ciidanka baddu wuxuu noogu muhiim yahay sida ciidanka dhulka uu noogu muhiim yahay inta dhulka ka jirta in leeg baa baddana ka jirta haddii cadowbadda dhulka joogo cadowbaddana wuu joogaa haddii tuug iyo xaraami ay joogaan dhulka tuug iyo xaraamina badda way joogaan haddii kootarabaan iyo mukhaadaraad ay dhulka joogaan kootarabaan iyo mukhaadaraadna badda waa soo mari karaa. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhiggu ay ahmiyad gaar siinayso xoojinta iyo tayeynta ciidanka. waxaan u hambaleynayaa caruurtiina iyo xaasiskiina iyo dhammaan ciidamada badda iyo ciidamada xoogga dalka ciidamada qalabka sida waxaad ka tihiin qeyb aad iyo aad muhiim u ah maadaama ciidamada qalabka sida waajibaadkooda sharciga uu yahay inay ilaaliyaan. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.